مقعنا إن نفسي وقت قاضي سيادة كان كلمة وقلت هذا وأنا أدعو عيسو أدعو عيسو هوس أدعو عيسو وأدعو عيسو إلهي إنه تفرارق كان حساره وحشرف وينيا رجامع قراد إسماعيل إنا ميكروفون كوريج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. aqoon-yahaninta beelaweynta dhulbahanteed ee ka kala yimid daafaha dunida, saxaafadda, haweenka, dhallinyarada, culamaa udiinka, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي وحام هذا سكال إلهي إن أبورتي إن الشفري قيمها إيو بناء النمذا وحوي نوا أبوري سلام النمذا نوا أبوري إن جودي للدورة إن جو كرامي ومهد كواد وحام كلو هالكلمات جارة وسوتشيدين إياه لما أنتي سوء أباب الشيء شركا خاتمه مسكحدودا ay ka soo maaxatay haday afar ahaayeen haday shan ahaayeen haday ka badnaayeen waxaan leeyahay ilaahay khayr ha idinka siiyo si gaar ah ayaan runtii waxaan iyada ugu mahadcelinayaa u salaamayaa waxa weeye meel weyn bay inaga taala waa fanaanad Soomaaliyeed weeye iyadana ilaahay khayr ha siiyo waxa weeye maanta runtii guul weyn bay noqotay hadii aynu nahay beelaweynta dhulbahanteed ee ka mid ah beelaweynta Soomaaliya haddaynan gurigeena iyo gudaheena aynan wax ka soo qabanna inaguna waxba isma tari karno Soomaaliya wax ma tari karno waxa weeye ninkii gabiye wuxuu yiri waxaan u wateeyay Turkiga wada soo rogay wada soo jiri anigu sanad iyo 9 bilood baan garaad ahaa ilaa maalintii la boqray hoos iyo kor badanta beesha dhulbahantaa ka wada شهدي بدلنا وانو صوغلاي أنيجي سلادين تبلو بهانتين إلى نورث أمريكا إلى يوروب إلى إيشيا نمبرناي وحنا الدور اللي عمر كلية عن سادين اللي وحياه ورأبوين تبلو بهانتين يودتك العلم جا تبلو بهانتين سيدي أي مر سويه للهاي ويقولنا هاي وين سحبنا يوم السلادين تدلغات بدن بيلي هنا واحد ثاني نخربنا السلادين تبى واحد سبيه salaadiintu waxa weeye hawl ayna lahayn oo dusha laga saaray baa jirta waxa weeye ninku markuu reer weyn yahay oo uu talada reerkii hayo oo taladii lagaga cararo waxa weeye ilaa guriga ilaa iyo waxa weeye talada geedka intaba uu isku qabanaya dadkii la doonayay in ay gudaha ka hawl galaan oo salaadiintu waxa weeye ay hawshii ay lahaayeen ay dib ugu noqdaan waa dadka aqoon-yahaninta weey markaad noo yimaan weydeen markii anigu aan gudaha tagay halka wax aqoon-yahan oo waxa weeye mas'uuliyiin ah gudihii ka hawlgalaya ay jirin markii businesskii dadkii lahaa ay qurbihii iyo dibadii kale ay hantidooda geysteen markii waxa weeye taladii oo dhan salaadiintii faraha looga qaaday te suldaanku waxa weeye bini'aadam weeyaan oo khaldamaya weey ama garaadku waxaan maanta idin cadeynaynaa daaqadii furnayd ee beelaweynta dhulbahanta ku furnayd wax kasta oo gudaha yaala banaanka u saaraysay waxa weeye dhibaatada ugu weyn ee ay waxa weeye ka taagneed hadaynu maanta soo xidhnay oo ahayd in aqoon-yahaninta dhulbahantay ay mar isu yimaadaan waa guul weeye wax lagu farxo weeye waxa weeye anaga cidda nala soo kala hadli jirtay salaadiinta la soo hadli jirtay horta waa idinka weeye haddaad idinku mid noqotaan oo taladiini maanta sida aad u mideyseen aad khaatimo ugu bixiseen ilaahay khayr idinku khatime annaguna waanu mideysanay horena waanu mideysanay laakiin haddaad noo soo kala hadashaan wadi sugnahay
oo group la hadlo waxa weeye salaadada loo baahantay waxa weeye salaadinta waxba laga saaray waxaan runtii aad ugu faraxsanahay maanta oo qiimo weyn aniga ah oo qiimo weyn beesha loo baahantay oo ah oo qiimo weyn ummadda Soomaaliyeed oo ah in maanta taladii loo baahantay dibadda loo taagay waa maalin taariikhi weeye waa maalin 1960 oo kale ka taagan aniga maanta la haddii aynaan mid noqon oo qulubteena iyo qalbadeena soo jeedin oo aynan taladeena waxa weeye aynaan miday waxaad ogaataan in aynan horumar gaarayn Soomaalina qiimihii aynu ku lahayno waxa weeye aynu hoos uga dhacayno Soomaalina ayna mid noqonayn waayo reer taariikh la baad ahaydeen oo aan been ahayn wad ogtihiin taariikhdii aad lahaydeen baa leedka doonaya waxa weeye annagu in badan baanu hadlaynay wuxuu yiri ninkii gabiye hadii dhaga wax ku dalolaan dhowr jeer wax lagu yiri annagu in badan baanu hadlaynay waliba anigu in badan baan hadlay war fadhiga laga ko war mid hal la noqdo war hal isu tanaasulo war ninkeena qiimaha la aan ku mitino war meel kale tagi mayno war dibkeena haysta waxna kaga bixi karnaa midnimo weey baanu in badan lahay aflagaadooyin iyo dib iyo dagaal iyo weerar intaba aniga way ka soo gaadhay intaba aniga way ka soo gaadhay rag mid ka ahaa laakiin goolka aanu lahayn iyo himilada aanu doonaynay ayaanu maanta haynaa waa wax ilaa lagu xamdinaaqo weey waxa weeye raggii hawshan soo abaabulay mar labaad waxaan leeyahay ilaahay khayr haydi siiyo ilaahay khayr haydi siiyo intii soo ajirtay ilaahay khayr ha siiyo halka oday baa fadhiya inuu istaagana waan jecelahay waa weyn oo beesha kamid ah isagoo maalin ooyaan weey adar yara istaag waa ninka weey toddobaadka ugu dhowey oo in baa indhiisa ka socotay waxa uu looyay wax kala ma ahayn tala xumada beesha haysata bay ahayd safar isaada ilaahay khayr ku sii waxa weeye maanta waxaan ku yiri maanta iyo maalintii ka war waa different bayta waxa weeye maanta guul baynu gaadnay ilmaha rayaal guusha aynu hayno yaan waxa weeye dhulka lagu dhufan waxa weeye dream come true baa la yiraahdo anigu riyadii aan badan ku riyoonay maanta hayaa idinkuna waad haysaa aad baan ugu farxay markii waxa weeye la yiri shirkan baa la qabanaya anagu haddaanu salaadiinta nahay shirka shaqo kuma lahayn hawshaydina ma ah hawshan aqoon-yahaniinta dhulbaahantay iyo waxgaradka dhulbaahantay rag iyo dumar baa iskale annagu ducadaanu leenahay waxaan maanta idin cadaynaya haddii aanu go'aanka iyo guddoonka labadaba lahayn maanta annagu guddoonkaanu leenahay laga bilaabo maanta dal salaadiinta go'aanka idinkaa go'aanka cidale waxa weeye waa idinkii annaga loo soo gudbinaysa annagu waan idinku ducaynayna geedaha yagii iyo guryaha yagii iyo masaajidkeedii waan ku noqonayna idinkuna waxaa la idinka doonayaa wixii ay beeshu ay horumar ku gaari lahayd Soomaalina kula midoobi lahayd dadka dariskooda ay ku nabadgelyo garaadku geedkiisi iyo gurigiisii buu ku noqonaya aniga ugu horeeya waxa weeye anigu waxa weeye hawshii aan soo qabtayna walaal shukr ala waajib laga bilaabo maanta tala dambe oo siyaasadeed oo dhulbaantu aan gelayaa ma jirto horena uguma jirin hadeerna geli maayo talada idinkaa leh idinkaa aqoon-yahayn u ah idinkaa waxgarad u ah waxa weeye ilaa iyo international community raggii ugu waaweynaa meesha fadhiya talada maanta ina soo martay oo xumay weligeedna ma soo marin waxaynu kaga bixi karnaa waxa weeye waa midnimo weey waxaad qabataan baa anana wax noo ah Soomaalina wax u ah waxaan maanta aniga waxa weeye mar afraad farax weyn ah oo runtii shirkan Soomaaliya oo dhan ay sugayso oo wadogtii nin reer weyn waxa weeye aqoontii iyo cilmigii intaba waxay wada isu keenteen tala midaysan baad ka soo saarteen taladii waa idinku ducaynaynaa waa la idinku ducaynay waadna ku mahadsantihiin shirka gudaha lagu qabanayana qayb weyn baanu ka noqonaynaa waanu ka qayb galaynaa inta dhimanna waanu ku dhammaystiraynaa taladii laga bilaabo maanta idinkaa laydin daba fadhiya hadhowba haddii aan xamal lahaydeen waad oran lahaydeen isimada dhulbahantaa halkaa tegay ama waxaa sameeyey haddaad idinku mid noqotaan anana mid baanuna waa mar afraad baan idiin sheegaya ilma adeerayaalow quluubtiina ilaahay isu soo jeediyo ilaahay qalbadiina ha isu soo jeediyo ilaahay Soomaalinimadiina ilaahay ha idinku abuuro
waxaad raaliga noqotaan waxaan maqli jiray wadawtin wastaadada guryaha waa dhisaaro waxa weeye intay dhisaan ilaa kuuriyaduba intay halkaa istaagaan bay waxay guriga quruxda badan baanu dhisnay oo intaasoo qol buu leeyahay oo intaasoo bisqulood buu leeyahay oo intaasoo baabuur baa ku xarooto waa guriga weyn ee quruxda badan hadhowna ninkii ahaabaa gala oo waxa weeye manaafacadsado oo caruurtiisa reerkiisa ku xaraysta guryo kale aad dhisi jirteen oo aad banaanka ka faari jirteen maanta haddaad gurigiina dhisteen oo aad isugu timaado intada kaasaanu leenahay oo wax ilaahay loogu xamdi noqo inaad idinku wax noqotaan baa loo baahay inaad khilaafka iska saartaan baa loo baahay in aydan waxa weeye meelo kale lidinka kacay hadin baa lidinka baahay waayo kee aad u tagaysaan ee meelaha kala joogaan waad jabinaysaan oo maandheedu baahanto ugu tagi maysaan idinkuna waad jabinaysaan oo dhulkiina iyo deegaankiina waad ka warhaysaan war meeshaad doontaan taga idinka aqoon-yahanin u ahay bal meel aad ku midaysantiin maanta waad haysaan meeshaasaanu isku taageeranaa annagu laakiin waxaad ogataan xaaladan maanta dhulbahanta ku jiro inaanay sidaa ku dhalayn inaanay sidaa aynu heer ku gaadhayn inayna sidaa waxa weeye dan guud oo soomaaliyeed iyo mid gudaheennaba aynaan ku gaadhayn waynu isu ognahay kala dheerayn mayno waynu isu fiirsannay waad isu fiirsateen nin walba waxa weeye caloosha gacanta loo geliyey wax kaga soo baxayna waad garanaysan uuskii wax ka soo baxay muxuu ahaa iyo wixii qurinkii ku jiray waxa weeye maanta aan drop garayno talada dhulbahante ee aanu raadinayna waa aqoon-yahaniinta dhulbahante ee rag iyo dumar wey haddaad maanta mid noqoteen annaguna mid baanuna shacabkeenna oo ka mas-uula intaa waxaan kaga baxayaa khudbadii yareyd ee runtii gaabnayd ee aan soo jeediyey qodobadii waxa weye shirka laga soo saarayna waanu taageersannahay ilaahayna waxaanu idinka baryaynaa ilaahay inuu qulubtiina iyo qalbadiina isu soo jeediyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay caloosheeda inuu barcad isu mariyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu caafimaad idin siiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa shirkaa khaatumo ilaahay khayr ha inoogu khatimee waayo inagu khatimee ilaahay inuu taladeeda tii guul lagu gaaro oo ilaahay inugu midayo ilahayna ka dhigo ilaahay waxaynu ka baryaynaa oo ilaahay ka baryaynaa dariska iyo meelaha joogtaan iyo meelaha ka timaadeen baa ilaahay inuu isku nabadgeliyo in idinkoo caafimaad qaba aad guryihiina iyo dadkiina ku noqotaan in ilaahay ubadkiina iyo xaasaskiina iyo caruurihiina idinku nabad celiyo haweenkana waxaan leeyahay ilaahay khayr haydin siiyo waad shaqaysayna jannadii u shaqeeya ilaahu laba talaba tiirno baanu kaa barayna ilaahu wax ma dooran karna adigu noo door ilaahu dushaada iyo deeqdaadaba na deeqsii ilaahu caraaraabka adduun iyo cadaabka aakhiraanu kaa magan gallay ilaahu carab dalab iyo calool xun baanu kaa magan gallay ilaahu colaad iyo abaar baanu kaa magan gallay ilaahu adduunka noo barakee oo ubadka noo barakee oo oryaha noo barakee oo iimaanka noo hagaaji ilaahu qof waliba meeshuu ka celiyay ka caawi ilaahu ummadaada qulubteeda soo jeedi ilaahu ummadaada intii dhimatay u naxariiso inta bugtana shaafi annagana nooga daba naxariiso ilaahu ummada khayr qabaan waddankii kaaga barinay ilaahu colaadda naga jooji kuwa maanta dhulkiina joogan iyagoo caafimaad qabo aan dhibaato dhex marin ilaahay guryahooda ku nabad celiyo soomaaliba kala maartay ilaahay soomaali qulubteeda ha soo jeediyo ilaahay midnimada soomaaliyeed mid ha ka yeelo ilaahay dhibkaa koonfur ka jira ilaahay waxa weeye ha ka dulqaado ilaahay waxaynu ka baryaynaa inta sharkaynagu wadana ilaahay sharkooda naga hayo inta khayrkayna wadana ilaahay khayrkii qulubteeda noo soo jeediyo halkan 2 biloodood baan ka bixinaya mid waxaan siinayaa gudoomiyaha isfahansiinta baasha cali jaamac oo runtii waxa weeye aad u soo halgamay midna injineer maxamed cali maraasiinaya waxa weeye midnaan gaariyay aad iyo aad u mahadsanyihiin laba barees baanu siinaynaa kaafi community iyo SSC-na waxaanu leenahay hawl fiican baad qabatay ilaahay khayr haydin siiyo raggii hawsha soo abaabulay ilaahay mar labaad mar afraad mar shanaad ilaahay khayr ha siiyo maanta guul baan joognaa ilaahay guusheeda haynagu hirgabo ismadii dhulbahantana maanta farxad bay joogaaneen ilaahay farxadooda ha u sii qaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh